aagani waxa maamula laba libaax oo walaalaha labada midna malaha qoys kale oo ahayn walaalkii tanina waxay u sahlaysaa inay haadaan qaar isku tiirsan oo aad iyo aad u xoog badan libaaxu haddii uu 5 sano gaadho waa xilligii uu samaysan lahaa qoys isaga u gaara kuwaasoo isagu uu inta badan ka noqdo madax labadan walaalahay waqti badan way soo wada qaateen haatanna waxaa la marayaa waqtigii mid kasta waajihi lahaa nolol isaga u gaara labadan aar ee walaalahay waxay maamulaan dhul aad iyo aad u badan 20 mayl oo isku wareega ayaa ay maamulaan mid kamida labada walaalaha ayaa maanta wuxuu si kaliya u helay mid dhadig oo ka soo luntay group kale oo libaaxiya hadday mid dhadig soo gashay meesha waxa soo aftirmaya xiriirkii labada walaalaha ahaa mid walibana wuxuu waajahayaa nolol hore aan u arag iyo khibrad cusub taasoo uu kaligii ku waajahayo labadii aar ee walaalaha ahaa waxa soo aftirmay xiriirkoodii mid kamidna wuxuu waajahayaa nolol cusub oo aan hore u arag oo kalinimo taasoo khibradiisu ay ka u tahay maanta waa markiisii koobaad ee walaalkii ka tago mana garanayo nolosha kalinimada wuxuu kala kulmi doono balse dhulka iyo territory iyo xuduudu way ka dhaxaynaysaa mid walbana xaq doona ayuu isaga gooshaya waxa uu ka tagay walaalkii isagoo waajahaya mustaqbal aan u garanahayn waxa uu kala kulmi doono maalintii walaalkii ka tagay galabnimadeedii cirku waxay soo qabsaday daruuro aad iyo aad u madow dabaylina way bilaabatay halkani waxa degan oo aaga ka dhow raxan ruwaaya taasoo inta badan ay ka maqan yihiin kuwa qaangaarka marka laga reebo Senegal oo iyadu midkeeda yar ee dhashay inta badan waqti la qaadata balse waxba ku soo socda waxaana u soo dhukusaya aar libaaxa oo aad iyo aad u xoog badan kaasoo iyaga geedaha isugu soo qarinaya dooga Senegal war ma hayso balse masiibo ayaa soo wajahday toban talaabo wax ka yareeya u jira libaaxu warna kama hayaan Senegal waxa ka aragtay 10 talaabo wax ka yar waanay baxsatay nafteedana la carartay mid kasta halkii ku baagneed ayaa u cararay balse laba yar oo kamid ah ayaa iyagu daahay isla markiiba mid ayuu dilay Senegal la waxay dirtay qeyladaan qoyska xubnihii kale ayay qeyladaan u dirtay markale ayuu miciya xoog badan leh isugu geey libaaxa khatarta badan leh inta badan cunto ahaan uma dilo ruwaaga wax yar kadib waxa soo gaaray qoyska intii kale waxa isku wada yimid dhamaan qoyskii ruwaaga ahaa waxaanay ogaadeen inay halkan masiibo ka jirto balse kuma soo dhacayaan halka uu libaaxu taagan yahay balse libaaxa laftiisu waxa uu isbidayaa lahaanshaha dhulkan
dhibaato ayaa jirta kana dambaysa waalidani libaaxu waxa uu sheeganayaa dhulkani waana aagga isagu maamulo haddii uu ku kaajo dhulka sidoo kalena uu ciyo libaaxu waxay ka dhigan tahay inuu isagu dhulkan maamulo oo ka taliyo inta badan libaaxu dhulka uu ka taliyo laguma noolaan karo kuma noolaan karaan xayawaanada kale ee uu ka midka yahay dhurwaagu harimacadka iyo shabeelku inta badan dilka waraabayaasha ama dhurwaaga waxaa lagu qiyaasaa 60% inuu geysto bahalka loo yaqaan libaax kadib tagistii libaaxa ayay u soo yaaceen bal meesha waxa ka dhacay iyo inay bad qabaa dhalaha intii kale kani waa uu dhintay mana uusan badbaadin balse intii kale ayaa la hubinaya waxaa la hubinayaa dhalaha intii kale isneega lafteedu warwar kuma yara oo waxay eegaysaa bal markeedii yaraa inuu nool yahay isneegal iyo dhasheedu midba midka kale ayuu hubinayaa badqabkiisa mid ka mid ah dhurwaaga dhadigaha ayaa waxay dul taagan tahay dhasheedii la dilay ee maanta libaaxu salfaday tanina waxay ka dhigan tahay inaan u soo noqonayn dhasheedu sidaasna ku galbatay oo ku dhimatay si kastaba ha ahaatee waxay soo qaaday neefkii yaraa ee uu dilay libaaxu balse dhurwaagu wuxuu xayawaanada kale kaga duwan yahay midkii dhintaa wuxuu cunto u noqdaa kuwa kale tanina waa arrinta argagaxa leh ee bilowday inay cunto cunugiyada ka dhintay ee uu libaaxu salfaday marka laga hadlayo dhurwaaga ama bahalka loo yaqaan waraabuhu waxa uu halis ku qabaa xagga cuntada waa xayawaanada raqda hatta lafaha ruga waana sababta inta badan libaaxu ku dilo marka uu ku qabsado raqdiisa ku nagaanshiyaha godka ay dhalahu joogaan iyo waqti la qaadashada dhalaha yaryar ee markaasi soo koraya kama sinna dhurwaagu balse isneegal iyadu waqtiga ugu badan waxay ku qaadataa godka ay dhalahu ku nool yihiin tanina waxay ka turjumaysaa inay ka dhal jeceshahay waxaana haatan soo waajahay ramxadii eebbe waana roob afar maalmood ayaa ka soo wareegtay maalintii uu soo weeraray libaax isneegal waa ay ka guurtay qoyskii kale dhurwaagaha waxaanay god gaara u samaysay iyadiyo xabadii dhurwaag ahayd ee dhashay kani waa mid aad iyo aad u yar waxaanuu haatan jiraa muddo 3 wiig oo kaliya waxaanay waqtigeeda ugu badan la qaadataa isaga balse dhibka jira waxa uu yahay muddo 48 saacadood waxba maana cunin haatanna waxay u diyaar garoobaysaa inay u cunto doonato ama ay u qaraab tagto dhasheeda yar waxay mooday inuu seexday waanay u dabada uga soo baxday godkii oo waxay doonaysaa in ay qaraab tagto balse waa mid aad iyo aad u madax adag waaw ka daba yeedhaya